السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وضع سلامي دمانتنا خياري ميل قصة عالم كنوشيين ومدى إسلام كأمة الصومالية ميل قصة كنوشيين وأنا وضع سلامي هل كلمات وحن نوسيدا وحويان فطيرة سواء كسميني ويان ديجاج أما محل هذا تشيكن أما دورو قفل بسيطو دونه أو يقانو مركا محل هذا sabaayad ayaan iyadana dubaya insha Allah. Sabaayad muhiim ma aha oo way ku jirtaa channelkayga qofkii u baahan sabaayadiyada yani waxba idin ma tusin waxaan tusayaa sida aan sameeyay duqada halkan maqli iyo waxaan soo saartay digsi maxaa la yiraahdaa digsiga waxaan ku soo shubay saliidaas insha Allah markay kululaato ayaa waxaan ku darayaa basasha hadii la yiraahdo halkan waxaan ku haystaa waxa weeyaan waa chicken kaasoo maxaa la ku soo riday khal iyo waxaan ku soo riday iyo milix markii dambe waan ka miiray saliidii way noo kululaatay waxaan ku daray basashii 3 xabo basal ay ahayd basashaas marka qof kasta basasha soo jeceliisa ugu darsanaya halkan kalena waxa igu jira waxa weeyaan xawaashiyo maxaa la yiraahdaa waxa weeyaan waa liin dhanaan filfil barbariika basbaas maxaa la yiraahdaa organo iyo sactar basashii cabaar markaan shiilay waxoogaa soo yar shiilantay casaana aanay noqonin oo aan dahabi aanay noqon ayaan waxaan ku daray laakiin aad u shiilantay hadhutuna aanay waxba ka muuqanaynin ayaan waxaan ku daray chickenkii kabacdi xawaashiyadii baan ku daray say lafta isaga gashay iyo dhuuxa waxaan kaloo ku daray milix oo aad u yar because liin dhanaan baan ku daray qalalan milixda wax yar ayaan ku daray chickenka markaan shiilayay suu lafta uga galo marka ka raali ahaada midna arkaynin halkan waxaan ku sameynaya waxa weeye waa sabaayadii because waxaan rabaa sabaayada iyo maxaa la yidhahdaa suugadaan sameynayna in isku dhinac sameeyo si hal mar igu wada dhamaato halkan waxaan ku sameeyey waxa weeyaan waa chickenkii in muddaan aan soo shiilayay imika waaba iska dhudhowiya waxba kama dhina waad ujeedaa wuu qalalan yahay aadna uma qalalno oo qalayl hadduu noqdo adhutubladhan ayuu noqonayaa xoogaa waxaa ku jira dhecaan yar buu leeyahan waxba aan ahayn laakiin wuu bislaaday sabaayadda laftarkeedii maasha Allah way iisoo dhamaatay because cajiradadan dheereeyo aan iraahdo waxaa dhan baan wada daba dhigayaa waa maxaa la yiraahdaa cajiradan ugu dheeraanaysaa marka chickenka maasha Allah saas ku dhameystiray imika hadii la yiraahdo waan ka qaadayaa sabaayadana waan dhameeyay marka waxaan sameynayaa insha Allah hadii la yiraahdo sabaayada beedka san isugu dardari lahaa ayaan hadda insha Allah idin la qaybsanaya hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaro xabadii u dambeysay ay saaran sabaayada imikana qaybtii kale ayaan u gudbayaa maqligii baan soo maydhay oo soo diyaarsaday halkaa waxaa igu jira waxa weeyaan waa milix waxaan rabaa inaan isku dardaro qaybtii ku xigtay milixdii ayaan halkaa kusoo shubtay iyo filfishaas ayaan ku wada shubay maxaa la yidhahdaa quraarada yar waxa kale hadda soo qaadana waa sactarkii may waa orgaanadii waa orgaanada ayaan ku daray qof kasta wuxuu jecel yahay isaga ayaa ku darsan kara wixii dooqiisa halkaasna waxaa ku jira sactarka ayaan ku darayaa iminka haddii la yiraahdo sactarka ayaan si fiican idin tusayaa dad badan baa sactarka soo weydiiyay maxaa English ku qoran marka wakaas qoraalka halkaa ka qaata beedka ayaan ku sameynayaa insha Allah hadii la yiraahdo beedkaas iyo intaas markaan isku qaso ayaan waxaan ku shubayaa maqliga
waxaan kusoo dhajinayaa maxaa la yiraahdaa sabaayada haddii ilaha yiraahdo. waxaan eegayaa maqliga inuu kulaaday in kale. halkan beedkii ayaan waxaan sameeyey soo qasay insha allah. sabaayadii ayaan kusoo dhejiyey beedkii. maqligii marka hore waxaan ku shubay beedka markaan ku shubay kabacdi waxaan kusoo dhejiyey sabaayadii. beedkii waa kaas maasha allah. isaga dhanba sabaayada ayuu ka labada dhinacba sabaayada ayuu ka noqday. ka labaadna waa idin tusayaa laakiin inta kale idima tusayo because cajaradu way nagu dheeraanaysaa. kii kalena waa kaas maasha allah. waan sameeyey maxaa leedahay isna dhinaca kale labada dhinac markaad u bedesheedba wuxuu noqday sabaayad. insha allah dad badan oo fatiirada garanaya ayaa jira. waan xasuustaa Hargeysa meel lagu iibin jiray ayaan ugu doonan jiray markasta. marka maasha allah fatiirada waa taas. casariya laga dhigtaa, cashaa laga dhigtaa. qaybtii waxaan u gudbay saddexaad oo maxaa la yiraahdaa saladhka. waxa aan ku shubay madibada waxa weeyaan waa milix. waxa aan ku xijinay waa filfil. maanta filfil cad ayaan wax ku darsanayaa. filfisha ayaa iga badatay marka in yar baan ka qaaday. waxaan ku daray waxa weeyaan orgaano iyo waxaan ku daray sactarkii iyo oyolifa. imeyn arkeen markaan ku darayay intaasaan ku daray. saladhkii ayaan iminka ku daray maxaa la yiraahdaa alaabtii aan soo walaaqday. marka saladhkan waa salad yar iska caadi ah simple ah maaha wax weyn. saladho badan oo kala nooca sabaayadii aan soo jarjaray maxaa la yiraahdaa iyo beedkeedii oo ku dhex jira. iminka waxa aan ku daray waxa weeyaan waa duqadin waa digaag saan markii hore idin sheegay. waxa kale aan ku daray waa soos. waan ka xumahay sooskaas I don't know way ka go'ay markaan sameynayay. waana soos aad u macaan. insha allah isagana waan ku xijinayaa cajladan haddii ilaahay subxaana wa tacaala qadaro. waana idin tusaya isagu keliya ayaan idin soo tubaya haddii ilaahay yiraahdo. saladhkii saasaan u sharaxay. dusha waxaan ka saaray muus. fatiiradu mar walba muuska ayay ku macaan tahay. muus la-aanteedna waxaan u malaynayaa inaanay dhandhan aanay lahayn. markasta kuley muuskaas unbaan anugu aan ku bartaan ku cuni jiray weligayaan lahay. Thank you for watching Mogadishu Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.